السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا قاعمة فران قلب فران وانيقو عدنان اسماعيل حرسي. لايك شير كومنت إن شاء الله. الموضوع اللي مالتا كهالدنا هو موضوع عادي حساسي وقصة بسن وحالي راها قضيته مع أيامي دويت كدعي سومالان وحن دوني تنومي هيد عليو أبوانكا ويلي جيبا anigu aan arki jiray inuu insaan ay ka go'an tahay inuu isbedel keeno waddanka Soomaaliland oo waxa la yiraahdaa cadaalad iyo sinaan ay waxa la yiraahdaa cid kastoo ku nool Soomaaliland inay hesho marka aniga ku hadlaya magacayga aniga ku hadlaya magaca beesha Madhiwaan aniga ku hadlaya waxa la yiraahdaa beesha Gurgaarti waxaan leeyahay waa mahadsan tahay insha Allah ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay khayr badan kaasiyo oo lagu casuumay dad caan ah oo beelaha ka soo jeeda sida wasiirka caafimaadka oo beesha Muusdariye ka soo jeeda oo magaciisu yahay Mahad iyo beesha Tumaal oo waxa metelay oo ka soo jeeday Weji oo agaasimaha telefishinka qaranka Soomaaliland iyo beesha Madhiwaan oo ka soo jeedo barkhad baatoon afyaanka xisibka wadani طبعا waxa la yiraahdaa waa la wada hadlay markii aan la hadlay barkhad arin oo ka hadlay ayaa saamayn ku yeelatay mujtamaca Soomaaliland taasoo xataa gaadhay in jaamacad soo jawaabto taasoo gaadhay in beela kale ay soo jawaabaan taas oo waxa la yiraahdaa arin weyn laga dhigay oo waxa la yiraahdaa social media qabsatay marka ayaa tara barkhad wuxuu ka hadlay oo hadduu waxaan ka hadlay waxa simii jiraan mise ma jiraan marka ugu horeysa barkhad aan dhigeysano wuxuu ka hadlay oo meeshaba bam ka dhigtay oo inay la isku soo jawaabo iyo booliis iyo hanjabaad iyo waa lagu dilayaa iyo waxa gaarsiiyay waxay tahay arintaas waxa ku soo dhawaada jaamacadda laftirkeedii ayaa waxa dhacday iyadoo xiisad dhaxalaan ku jirno ayaa macallin markaa xiisadda tusaale ka bixinayay wuxuu yiri 28 arday baan markaa ahayn oo 2005 markaa dhaxalkan loo dhigayay markaa kafka waxa laga hadlayay dhaxalmay ahayna waxa laga hadlayay qisaasta iyo markaa sharcigan loo dhigan jirayo waxa dhacday markaa wuxuu yiri hadii masalan imaka qof adooni buuri qof xor buuri qof adoona gacanta ka jaro gacanta looma jari karayo maase ardaydu tusaale hore u soo qaban weyday masuul masalan imaka mid reer Hargeysa ama haybta noocaas oo dadkeena buuri imaka mid dadkeena buuri haduu mid gaara gacanta ka gooyo looma gooyo tusaale markaa ku soo dhaweyn bal waxa sawirata adoo ardaya galaaskii fadhiya goobaha aqoonta biyo doctor jaamacada ay tahay macalinka tusaale saa ku bixiyo ma kursigaad hoos geli ma daaqadaad ka boodi ma dood baad sameeyay waa adagta طبعا waan daawanay marka fiidiyoogii fiidiyoogan daawanay barkhad wuxuu ka hadlay isagoo suuqa ku jira طبعا macallin amba diinta dhiga ayaa arin mas'alad diini ayaa la weydiiyay oo shariicada khusaysa marka su'aalo wuxuu ka soo qaaday مثلا beelaha midgaan aba beesha midgaan oo kale waxa la yiraahdaa magmalaha ay u fasiray marka barkhad waxa ku noqotay arin wuxuu yiri daaqada ma ka booda amba sasaab ma qasheen okay arintaas horta wadaadada amba dadka shariicada dhiga amba diinta dhiga ee mujtamaca Soomaali u dhiga arrimahaas oo kale tusaale ma ku soo qaataan marka laga yimaado jaamacad mujtamaca laftiisa amba masaajidka ilaahay laftiisa ma laga yiraahdaa hadallada mise ma laga yiraahdo waxaan jecelahay inay la daawatiin laba wadaad oo arintaas iyagoo bulshada dhex fadhiya oo uma dhex fadhiya tusaale ku soo qaadanaya beelahan oo kale inaanay waxba ahayn inaanay zero ahayn oo mumkin qof annakan oo beelahan aan ka tirsannahay haduu joogi lahaa meeshaas oo kale marka wuxuu noqon lahaa dareenkiisu marka barkhad wuxuu ka hadlay dareenkiisa marka bal adiga maanta kabahayga gasho oo imika labada wadaad hadalkii leeyihiin hadaa masaajid joogi lahayd
oo qabiilkaaga hadallada lagu oran lahaa dareenkaaga wuxuu ahaan lahaa markaa kusoo dhawaada labadooda dhegeysta waxay waayeen nin indhal oo ree aalu sheekh ah nin indhala oo ree aalu sheekh oo mufti noqon kara waayeen markaas waxay u guureen nin dawsari ah mise xadrami ah sheekh anbaz walihi idinku u taqaanaa ma dhibaanku ahaa carab dhalada ma aha nasab xataa ma ay dhahan oo qolyaha la yeeso xagga dhalashada cilmiga ilaahay sharaf ku siiyo ninka caabidka cilmiga u baahay laakiin xagga inta al-arab waa maxay ma dhibaan buu ahaa sheekh waad ogaan doontaa sheekh xasan adaa dib u ogaan doonaa dhib malaha dib u baadh waa a'immadii kutubta qortay nin baa beri kitaab طبiga ka sheekeeya طبiga طibu nabawigan maaha ee طibigan kale soo maydaan arag waxa ragga qaar baa yiraahda qolo kastiba midgaanay leedahay midgaanada culimada ma taqaaniin bay yiraahdeen iyo gabooyaha culimada waa kuwa طibiga ka shaqeeyay yiraahdeen kolka طibigu maaha طibiga nabawiga ah طibiga nabawiga ama ah waa طibigan kale dumarku ku xeersan yihiin soo maydaan arag nin baa oranaya waxbaan dibiyayaayo cidda ka agdho dhaw dhani waa dumaruun meesha dumarba ka waay maysidba cidda u imanaysa ee soo galaysa ee baxaysa ee la daweynaya ee joogta ee waxa weey waa dumaruun wax marka qaar baad naxaysa ay soranaysa okay imka waan dhageysanay wadaadadii waana indhahaana waa ku aragteen inay yani waxaan tusaale caadi ay u tahay dadka diinta amba shariicada inay mar kastaba tusaale ku soo qaataan maaha maanta kaliya imka fiidiyada waa fiidiyo cusub waa 2019kii ay ahayd barkad wuxuu ka hadlayay 10 sano ka hor amba 15 sano ka hor markuu jaamacadda ku jiray okay qadiyaddan muddo dheer bay saasoo kale wadaadadu amba dadka shariicada diinta dhigay tusaale ku soo qaadan jireen ilaa ay niyad ay ka jabiyeen dadkan oo qof markuu shiraaha masaajidka ilaahay qabo unba qabiilkiisa la soo qaadaya markuu shiraaha waxa la yiraahdaa jaamacad qabo qabiilkiisa unba lagu soo qaadaya tusaale inaan waxba ahayn markuu waxa la yiraahdaa meel xafiis fariisto saasoo kale yani dhibaatooyin badan bay la kulmaan jaamacadii ka soo jawaabtay waxaan jeclaan insha Allah inaan jaamacadda hadalkeeda aan dhageysano waxay jaamacadda Soomaaliland waxay ka tiri arinta jaamacadda Hargeysa ayaa maanta ka jawaabtay hadal ka soo yeeray afayeenka xisbiga mucaaradka ee wadani barkhad jaamac batan uu yiri dhaxalku noo dhigi jiray oo kelmadda markuu yiri meelan ka baxo tusaale u soo qaatay in la haybsooco arintaas wax jira ay noqon weydo run ahaantii haddii ay ka dhacday waxay ahayd barkhad maalintiiba in halkan iiman lahayd ilaan warkaas oo kale ma qarsoomo kulka waxay la tahay de arinta hadalka uu yiri run ahaantii kuma fiicneen waqtideediina ma ahayn barkhadna waa inuu dhalinyartoodii dib ula hadlaa uu sheegaa jaamacaddan inay tahay meesha lagu soo dhaweeyo barkhad xataa macallin baan halkan ka dhignay macallin inuu ka noqdo kooraskan aanu dhigo ayaan siiyey kulka aniga waxay la tahay meel ka wanaagsan baynu doonaynaa barkhadna waa de saraakiisha waaweyn xisbiga wadani macallinka hadda uu yiri dhaxalku dhigi jiray oo macallin baa sidaan ugu yiri macallinkii run ahaantii de waxbaan weydiin lahayn laakiin maanta waa nin dhulyaala qaar ka mid ah ardaydii xilligaasi la dhiganayay jaamacadda gaar ahaan kuliyadda sharciga in arinta barkhad sheegay waxba kama jiraan waxaan maanta ku beeninaa inaan waxba ka jirin haba yaraatee barkhad jaamac 4 sano soo laasayn 4 sano sharaf ku dhiganay arinta uu barkhad jaamac batun uu ka dhawaashiyay u xalaalay iyo wax ka jira sida runtii ma jiraan waxa la yiraahdaa jaamacadii waxa la yiraahdaa way soo hadashay barkhad wuxuu ugu soo jawaabay jaamacadii Soomaalidu waxa tiraahdaa yiraawu ilaawa laakiin la yeelama ilaawo waxa laga yaabaa kelmad si fudud kaaga soo baxday inay aad kula fududahay laakiin qofka qalbigiisa wax yeelanayso marka wax maalin kasta dhaca anigu 10 cishaan ma dheera ku xidhnaa xisbiga wadani baan ku xidhnaa aanu xidhnaa barnaamij siyaasi ah ninka dhan ee dalka haysta madaxweynaha waxba laga sheegay inuu la midgaan ka erban isaga taag lahay marka wax dhaqan ah oo u baahan waji siyaasiga aniguna kama baade yani murar dilaacsani midgaannimada ee waxa weeyaan inaan anagu waxaan haybtan la nagu sheegayo aan noqono de waxaanu dooranay maaha intaanu tagnay immigration kama nooran identity-gaana si ama dawlad hoose laakiin waa ilaahay uu noo dooray xanuunka waxana wax dareemi lahayd badriyo haddaad
laba maalmood midgaan ahaan lahayd baa dareemi lahayd okay barkhad iyo jaamacaddii jaamacadda waxay leedahay ma jirto barkhad wuxuu leeyahay way jirtaa okay markaan ka nimaadno jaamacadda miyay jiraan dad siyaasiyiin ah oo Soomaali ah oo waxaa la yiraahaa oo maaha daruuro Soomaaliland oo kaliya ilaa qadiyadan Soomaaliland oo maqsaysa oo Soomaaliland way ka dhacdaa markasta hadday jaamacada noqoto amba hadday noqoto qaybta diinta hadday noqoto oo wadaadada san imika inuu soo gudbiyay miyay ka dhacdaa Soomaaliya saas oo kale oo dad wazin leh amba miisaan leh oo madaxweynayaal xataa soo gaaray oo madaxweynayaal maamulada Soomaaliya ka noqday oo ka sheekeynaya horey ma aragteen haddana oo arag imika la daawo ardayda yar baa ka mid ah oo 10 jir ameerahaas 5 jir 6 jir meelahaas 7 jir 6 jir meelahaas arday wuxuu ahaa qurux badan bright brilliant dadka ugu fiican waan jeclaaday wiilka marka ardayda oo kala jeceshahay sukaasoo u kala fiican yihiin baa u kala jeclaanaysaa maanta ma dhowr bila waxa waay wiilkii iskuulka ka waay waxaan ku ruubi wiilkii hebel ahaa meey kii ag fadhiyay baa wuxuu yiri macallin midgaankiya macallin midgaankiya marka calaamadda uu leeyahay wiilka yarkahay maskaxdiisa quruxdiisa aqoontiisa in kulli galaaska u fiicayo ma muuqato waxa muuqda waa qamiiskiisa okay waxaan imika imanaynaa qabiil kamid ah beelaha dadkan qadiidooda laga hadlayay waxa la yiraahdaa laba nin baa ka hadlay qadiyada saddex nin baa ka hadlay qadiyada saddexdii nin intii iska daayeen ayaa waxa la yiraahdaa waxay kaga dhigtay barkhad iyo jaamacadda markuu ka hadlay waxa iska dhigan dad waxa la yiraahdaa waxay yiraahdaan anaka ma la dulmo waxana waa been weeyaan jaamacadaha waxa la yiraahdaa waa raali gelinaynaa jaamacadaha waxa la yiraahdaa waa lagu gafay marka oo ah wasiirka waxa la yiraahdaa wajhu ka hadlay ma la soo qaadin laakiin barkhad waxa la yiraahdaa way soo qaadeen oo jaamacadda ay ka hadlaan amba waxyaabaha ka hadlaan amba umuuraha ka hadlaan yani labadan arrintoodii ma eegin laakiin barkhad un bay kamarada saarteen okay waa yahay bal ila dhigeysi waxay laga hadlay jaamacadda abaad bayna ku leedahay dad mas'uuliyadahay wax lagu ciyaari karo iyo wax lagu kortoobi karo midna maaha jaamacadda inamadii ugu horeeyay la barwanka ahaa maanta xaggan taageen waxa ka mid ah maxamed deeq cabdi muuse maxamed oo raggii ka soo qalajibiyay ugu horeeyay baa ahaa maanta la tukoraa ma jiro sababtoo ay tahay ma aha jaamacado kaliya ama jaamacadda Hargeysa kaliya ma aha dadka ku nool Hargeysa wax dhigtaa ee beeshan musadariya ama beelaha kale la habso ee musliin lagu sheegayo wax ka jira ma jiro beelaha musadariina waxay tahay waa muqaddis musadariyo in Hargeysa ka noqoto hormood waxaan halka ka cadeynayaa inaanay jirin wax tikoor leeyahay oo lagu hayaa nabadgelyaduna ay taam tahay dawladnimada iyo amniguna inuu lama taabtaan yahay oo aanu taageersanahay runtii waxa baraarujin mudan markaad si dhow ugu fiirsato hawsha cidda badan ee wada waa ururo iyo NGO-yo mashaariic raadisa maaha qadiyad ay beeluhu wadaan ama ay markaa iyagu dabada ka riixayaan taa hortu in la fahmo waa muhiim arrinta kale aan baraarujinayaa waxay tahay haddaan nahay beelaha musadariyo goobaha waxbarashada ee dalka hadday tahay jaamacadaha dawladda ee qaranka hadday tahay jaamacadaha barefadka xaaladan maanta la joogo wax tikoora iyo wax haybsooca iyo wax dhibaata oo ardayda wax ka barata naga soo gaadho oo ay nooga cawdaan ma jiraan adeer Somaliland waa meesha keliyata ee si xor ah looga hadlo mid u dhashay iyo mid aan u dhalanba israhan iyo abahan amba muuse dhariyaha ahaado amba beelahan kale ha ahaado waa meesha keliyata ee Soomaaliya shantii gobol ee Soomaaliyeed laga hadlo wataase Soomaaliyada koonfureed bal nin midgaan sheeganaya ama loo nisbaynayo inuu yahay oo hadlaaya oo wax jira iyo waxaan jira sheegaya hal arko lama arki karo mana jirto haddaba caruurahayaga wax garadkayaga uqaashayada salaadiintayada siyaasiyiintayada iyo inta aragtida caafimaadka qabta waxaanu leenahay iyo bahda saxaafadaba ma nihin dad la haybsooco
haddii aanu nahay beelaha muusada ibraahim joker telefishinka sahan okay nimankaasi imanka waxay yiraahdeen anaka mana la dulmo anaka Soomaaliland waxa la yiraahdaa cid wax nagu samaysaa ma jirto laakiin waxa jirta salaadiin Soomaaliland ka tirsan oo beesha dhexe lafteeda ka tirsan طبعا beesha dhexe iyada madaxweyne ka ah Soomaaliland oo ka hadlay oo ka soo jawaabay oo yiri dulmo jira oo dhibaato jirta ila dhageysta Suldaan Suleymaan Cali Ismaaciil suldaankii gobolada Awdal iyo Selal ama galbeed ugu daaweynaa ama suldaankii guud ah anigoo ku hadlaya afka odaya dhaqanka Soomaalida waxaan ka hadlayaa qabaa'il inagu dulman oo dhexdeena ku baaba'ay inaan wixii igaga habboon idhaaho waxaan xaal siinayaa suldaan daakir iyo boqor axmed iyo suldaan nadiif nimanka iyo wasiir ku-xigeenka caafimaadka oo habeen dhaweed isagoo ooyaya aan arkay nimankaa waxaan leeyahay horta xaal qaata waa laydinku gefay Soomaali meelay joogtaba waa idinku gaftay dad walaalahooda oo la siman iyo yacni la takoore beelaha gabooye muddo qarniyaala oo ciidda ka badan oo aan la koobi karin oo la fara badan ayaa waxa lagu hayay gumaysi aan oran karo waa gumaysi maskax ahaan jir ahaan dhaqaale ahaan bini aadam ahaan si kasta loogu falay oo loogu jor falay waa arrin diinta islaamka ka baxsan waa arrin diinta ka fog waa dad bila aadama aadan baynu ka soo wada abuuranay waa dad islaama nabi maxamed baa inoo wada rasuulkeena ilaahay inoo soo diraya waxaynu isdheernay ma jirno wax kasta oo bini aadamku adduunyada korkiisa ku isticmaalo ama uu u baahan yahay ama waajib ahoo inuu qabsado ama qabto u baahan yahay dadka waa laga xanibay oo waa laga takooray waxaan mahad celinayaa salaadiinta Soomaaliland oo si sharaf leh dambiga inay wax jiraan oo meesha wax ka jiraan oo hadaladii shirka laga hadlay iyo waxa arintu barqad ka hadlay iyo arintu wajh ka hadlay iyo arintu mahad ka hadlay inay jiraan qaray okay su'aasha isweydiin leh waa beeshan lafteeda ee ka hadashay arintan oo leh waxa la yiraahdaa anaka mana la dulmo ma jiraan sheekooyin hore u dhacday oo iyaga ku saabsan oo iyaga laftooda dhibaatooyin badan loo geystay oo social media fiidiyoda ku jirto oo magaca gabooyin laga hadlay laakiin iyaga ku saabsanayd iyagaana dhibaatadu gaarsaneyd beelaha kale ee gabooyin dhibaatadaas ma soo gaarin Oda Mukhtaar Yuusuf oo waqtigan ku sugan magaalada Hargeysa waxa ay jildil iyo xarig kala kulantay guurka wiil ay muddahaas aawayeen oo ay u sheegtay reerkooga haddaba arrintaasi iyo sidii ay ugu dhacday waxay uga warantay telefishinka Star waxa la Oda Mukhtaar Yuusuf Faarax waxa san la igu galay nin gabooyaba doonatay ayaa la dildilay markii la maqlay sheekada waxaan xidhnaa 3 habeen 3 maalmood aan xidhnaa xarig iyo lagu hayo qamcaa qoorta ka xidhnaa ninka midgaanka maxad ka doonatay baa la igu sheegay bilowd baan ka wada soconay aan soo meersanay markii la isku diiday ninka waxaan leeyahay ilaahay hay gargaaro caafimaad sare aan ilaahay waan weydiisanayaa ilaahayna hayla garab galo dhinaca kale telefishinka Star waxa la hadlay aabaha dhalay wiilkani ay arintani ku dhacday inanka gabadha iskuursadeen ba dhalay markii aan ogaaday inay soo meersadaan isqabaana aabaheed baan u tagay adigu saddex baan lahaa moogta oo tawa ma ciyaalka istoofeen aan isku ducayno tii la muusugin bee oo igu bilaabay furbu igu bilaabay burkii markuu igu bilaabay inankaygi oo gacanta hayaan la baxsaday inantiina waa la qabtay waa la daldalay markaa iyadina bilow bay ahayd oo de hore isku soo meersadeen oo waxay isqabeen aduu muddo 3 bilood ay qarsood isku qabeen ducadii iyo wixii aan u siday sawtan bur la igu bilaabay okay waxaan imaanaynaa waayahay dawladda Soomaaliland beeshan ma ixtiraamto ma qadariso bal fiidiyoga la daawo anigoo ah Suldaan Farxaan Xasan Saciid iminkana aan hor taaganahay madaxtooyada Burco halkaasoo madaxweynuhu ku qaabilay beelaha Soomaaliland gudoomiyaha gobolka uu og yahay gobolkan Togdheer beelaha degan inaan nahay beel kamid ah waxaana lagu sameeyay discrimination colonies oo ordaanta people ah
waxa weeye waxa la yidhi u geli maysaan madaxweynuhuna idinla kulmi maayo ilaa iyo shalay iyo doraatuna waannu soo dhowaynaynay madaxweynaha somalilan isagaa waxa weeye ummaddan qaranka somalilan ee somalilan yaalla uu kala garanaya beelaha ay dhibaatadaa dhacaysa somalilan taagan ee 24 saacadood ka dhacaysa waxa weeye waxay u dhacaysaa dulmiga nalagu samaynayo haddii aanu nahay beelaha musadheriyo okay video game kan daawanay ninkan hadlaya eelaan uu suldaan baan ahay oo beesha waa lii diiday inaan madaxtooyada aan galo waa isla beeshan imika le waxa la yiraahdaa anaka dulmana ma nahayo oo dulm waxa la yiraahdaa ma jirto waxa la yiraahdaa imika sawir baan inoo soo dhigayaa sawirka waxa ku jira de rag imika lahaa anaka ma nala dulmo oo wax dhibaato anaka ma nala geysto Soomaaliland okay iyaga laftoodu waxa la yiraahdaa ma ka hadleen horay oo waxa la yiraahdaa dhibaato inay haysato oo Soomaaliland aan xuquuq ku lahayn ma ka hadleen oo inay yiraahdaan waan la dulmaay oo oran jireen misaanka waxba isbedelay marka waxa jeclay bal ila daawada nimankaas laftooda waan soo jarjarnaa video markan uu leeyahay anaka mana la dulmo iyo video leeyahay anaka waan la dulmaa dhacdo foolxun oo marnaba beesha islaan ka qaadanay oo soo jireen ahay oo saluug ahay ka dhacdana ma aha isoo kaliya kama dhacdo Soomaaliland oo kaliya kama dhacdo Soomaaliya way ka dhacdaa oo kuweena nala midka waa lagu hayaa Jabuuti way ka dhacdaa NFD way ka dhacdaa kiilka shanaadna way ka dhacdaa laakiin anaga Soomaaliland ma ku nooloo waxa ku leeyahay dhacdadu qarniyaal badan been ayaanu dugsanaynay ma dugsan doonee dhacdooyinka foosha xun leh yaana lagula kicin hablaha ilaahayna siiyana yaana laga dilin ma qaadanayno oo ma maqanayno waxaan doonaynaa dad islaam waamay dad idin la mid waamay dad idin la diin waamay dadka inaan idinka soo horeynay mooyo inaan nooga soo horeysay ma qabo ilmaadeerayaal inta soo qabnay hadaynu isku soo weynay waa khasab haddaan wadada saxda u marnana hablaana silmaysa haddaan jeclaata guursadana idinka bari mayno idinkana waxaanu leenahay iyo bahda saxaafadaba ma nihin dad la haybsooco haddii aanu nahay beelaha muslimiin barefadka xaaladan maanta la joogo wax tikoora iyo wax haybsooca iyo wax dhibaata oo ardayda wax ka barata naga soo gaadho oo ay nooga cawdaan ma jiraan anigu shakhsiyan waan ogahay mushkilaadka duruufta adag ee ku xeeran bulshada aan ka soo jeedo marka la eego xagga waxbarashada duruuf adag baa ku xeeran duruuftu mid gudahoodana way tahay mid dibadoodana way tahay waa waalid dareensanuun si kastoo qofku wuxuu bartaba inuu iska midyaan u noqonayo yeesan yahay marka dhaqaalaba uma hurayo dibaddana way ka qabsataayo ardaygii markuu walaal galaas fadhiisto ay 50 arday yihiin ee uu haraasa oo 50 kubadda u arkay inay dhinac ka wada yihiin maanta inuu reerka yahay ogaadaan dhagtiisu saaran gala waxa soo dhan markaan daawanay waxa weeyaan barkhad baatoon aniga shakhsiyan yani markaan ka hadlo barkhad baatoon waa nin madhibaana isku qabiil baan nahay laakiin beesha madhibaan ninkan waxba ma ku lahaa horumarku gaaray aba meeshu gaaray aba xisibkan uu galay wax shaqo ku leedahay ma jirto barkhad baatoon waa nin kartidiisa ku soo gaaray oo waxa la yiraahdaa horumarku gaaray oo maanta meeshu xisibka ka fadhiyo aqligiisa iyo aqoontiisa ayaa ka dhigtay inuu noqdo afyaanka xisibka wadani nin abaal oo qaba amba qabiil abaal oo qaba ma jirto marta taa ka laga yimaado dad badan baa waxay oran jireen cadnaanow imka adigu muddo sanad ka hor waxaa tiri qadiyadda gabooye qabiil kastaba afkiisa ku hadlo waa ka gaabsatay qadiyadii waxa la yiraahdaa sidii hore marka soo hadashid waxyaabaha uga soo hadli karo uga soo hadli waayeen waxa weeyaan waxyaabahaas oo kale waqti baa gashanaysa time baa gashanaysa Soomaaliya oo dhan hinooyu yaa tahay ma baahna adigu tasbartid amba inta u sheegtid qabiil kasta la degtid uu ku garanaya hadda ma dhibaan tahay hadda muusa tahay cid waxa la yiraahdaa wax qarnaysa ma jirto
laakiin dhibaatada jirta waxa weeyaan dadkan anagu qaybta wanaagsan baan soo dhigi jirnay waa dad midnimo waa dad laakiin qaybta waxaa yidhaahaa black ah amba qaybta madow ee qadiyadan ay leedahay anagu ma jeclaysa soo gudbino waayo anagu ma jeclayn inay ummaddu markay soo gasho social media amba ay youtube-da baadho amba meel kastaba ay baadho ay aragto dad ishaysta dad iscunaya waxaan ka fikirana mustaqbalka carruurta ka fikirana laakiin markii dambe waxyaabaha anugu arkay waxa weeyaan iska daaya dadka xataa ka shaqeeya laftooda waxaa dareemaysaa inay xasaasiyaadka dhex taalay waxaa la yidhaahaa waxaa dareemaysay waxaa la yidhaahaa nin kastaba wuxuu doonayaa inuu afkiisa ku hadlo nin kastaba wuxuu doonayaa intuu soo karsiis soo saaro marka waxyaabahan dareemay waxa weeyaan in magacan gabooyahan inaa laga dhigo waxaa la yidhaahaa abtinimo ah ku ekaato oo nin kastaba markuu kursi doonayo amba siyaasad doonayo inuu magaciisa ku raadsado gabooyaha anu horeen waanu sheegay imkana waanu sheegay wax laga bixi kara habeenaya maalin maaha laakiin dadkan dhibaata ayaa isku keentay isku aabba maaha isku hooyana maaha waxaa la yidhaahaa qabiilka keliya amba jifada keliya ayaa waxaa la yidhaahaa waxay degtaa soomaaliya oo dhan marka dadkan iyaga laftoodiba jifadiibaaba isfahmi la ka kaalay waxaa la yidhahaa marka madallad gabooyo la isku yidhaaho imika matala anugu nin madhibaana baan ahay madhibaanku waxay degaan somaliland waxay degaan puntland waxay degaan jabuuti waxay degaan keliga shanaad waxay degaan waxaa la yidhaha xamar waxay degaan kismaayo marka ummad isku dhaqan aan ahayn waxaa la yidhahaa ummad waxaa la yidhaha isku luqad aan ahayn ummad aanan meel wada tegin way adag tahay inay wax isla qabsato marka magacan amba magacyadan lagu daqadgarayn leeyahay hal kursi ku raadso waxaa la yidhahaa dulum weyn baa ku jiray marka anigu waxyaabaha soo jeediyey innaka waayo waxaan dareemay marka inaan anagu isnacayno oo maalinba markaa sii socotid inaa la sii nacayo maalinba inay cadaawadu sii kordhayso marka waa isla fadhiista waxay noqoniyo dadkan adiga laftaada malahad ma dulun ku wadaaye khalli kul waaxid inuu raaxadiisa ku hadlo qodobka labaad anigu mabaadi baan aaminsanahay mabaadi ayaan anigu shakhsiyan anigu aaminsanahay oo ah waxa weeyaan horumarka waxa lagu gaaraa waa caqli iyo gacan iyo lug caqligu waa inuu fikiraa saan wuxuu uga baxaa oo xal u keenaa sidaan horumar u gaaraa sidaan anu waayo ninku dulmaya dulm markaa soo saari karo isagii waa ku dulmaya xataa hadduu afka kuu macaaneeyo xataa hadduu 10 shir kuu sameeyo xataa hadduu 100 wax kuu sameeyo dulm cid kaa saari kartaa ma jirto adigun baa iska saari kara ma jirto adduunka ummad dulumka ummad kale ka saartay waa inuu isagu kartidiisa u keenaa oo waxaa la yidhaha caqligiisa u keenaa oo caqligiisa ka shaqaysiiyaa sidaan uga bixi karaa oo ku fikiraa markuu taa ku fikiro waxaa imanaysaa waa gacanta gacantu waa labo amba waa gacan sheebka waxaa la yidhaahaa soo saaraysa oo lacag wax ku gabanaya oo waxaa la yidhaahaa mansabyadii lacag ku raadsanaya waxaa la yidhaahaa tiraagaranaya inuu shacabkiisa amba dadkiisa inuu dad lacag yeesha inay noqdaan inuu wax kastaba u qooro jeebkiisa inuu mani bixiyo amba waa gacan wax dilaysa oo wax iska celinaysa oo jabhad noqonaysa oo hubka qaadanaysa oo mindida qaadanaysa oo ninka dulmay ka aarsanaysa iyo lugo waxaa la yidhaahaa jidka danahaaga ku geynaysa yani waa xagga danteeda xaggana ku jirtaa lugaha iyagaas ka soconaya dantaada ku geynaysa saddexdaa arrimood ayaa wax lagu gaaraa marka beelahan saddexdaa arrimood mumkin hal baa ka helaysa amba laba ka helaysa waxaa garaysaa waa nin yara fikiraya laakiin gacantiisa way adag tahay amba waxaa arkaysaa nin gacan fudud leh laakiin dad kale iska wawataan meesha doonaan amba ay ka luminayaan lugahoodu ma yaqaanaan amba meel dan waxay yaqaanaan meel uun iyagu isku noqdaan oo ma garateen marka anigu sheekada nagu dheerayn maayo anigu waxyaabahaasaan uga gaabsaday xaqiiqada dad badan baa la cadnaan gaartu noqday hawiyu noqday waxaas imka maaha waxyaabaha uga gaabsaday waxyaabahaas weeyaan qofku markuu isagoo horumar uu rabo waa inay isaga ka go'an tahay qofku qof kale ma ku mashquulo qof kale ma ku mashquulo marka waxyaabahaas soo jeediyaa waniyow ma dhibaanow
inagu af baa leedihiin madhimaan baa tihidiin danihiina eegta waar muusow waxaan iyo xagxagaashan iyo waxyaabaha layska daba shaqaynayo ma loo baahnee danahaaga eego muuse dharyahaaga soo dhis dhaqaalo u samee kartidaada ku soo bax xisbiyada ku biir madhimaan ha ku mashquulin tumaalow markii hore waa ku qaldanay nagaraa lahow juus saas wax ka wanaagsan ma jirto nin kastaba markaa calafkiisa wuxuu ka helo isaga ayaa leh laakiin waxaan anigu u arkaa iminka magacan gabooyaha lasii wadayo amba magacyadan lasii wadayo waxaa la yidhaahaa inay iyaga dadkan isku sii dirasoo qofka isla waxaa la yidhaahaa anagu 10 sano ku jiray qadiyadan si kastaba waa naga saaya saawona rogi horumar waan ka gaarsiinay waxyaabo badan waan keenay fikrado badan waan keenay wixii oo dhan waan soo dhiba dhignay laakiin ogol amba cid ka qaadaysa xagga ma jirto xamaasadda dadkani waa 2 cisho marka dhamaato waa sidii waa lagu soo noqonaya iyagii baa soconaya marka adduunka waxaa ugu xun 2 iyagoo la yasayo amba 2 iyagoo waxaa la yidhaahaa waxba aana ku lahayn waxba haysan 2 xayraan ma isqaadi karaan 2 waxaa la yidhaahaa xayraan ma isqaadi karaan 2 qaawan see Soomaalidu tiraahaba 2 qaawan waxaa la yidhaahaa ma isqaadi karaan waxaana jecelahay inaan la isku mashquulin Soomaaliland cid iska leh ma jirto waa la wada leeyahay nin kastaba xiniyihiisa isagoo hala soo baxo xiniyihiisa kursigu ku helaya ku helo intaas baan anagu tala siinaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh